نفتح حريست أوجي لما نهذا تشوقه وحوش عليها يوين kusoo dhawaada dhageystayaal idil ahaantiinba meel walba joogtaan maanta waxaan halkan idinkugu haynaa qiso jacayl ah oo dhaxmartay lamaana Soomaaliyeed oo lagu kala magacaabo Daahir iyo Ikraan qisadan ayaa waxa ay la magac baxday daarihii la dhisaa dadaal baa ka horeeyay waxaana idin la socodsiin doona anigoo ah Saalim Yare qisadana waxa ay u dhacday sida tan Daahir wuxuu ahaa mid ka shaqagala suuqyada weyn ee Bakaaraha wuxuu ka shaqayn jiray baqaar kamid ah baqaaryada ku yaala isla suuqa Bakaaraha Daahir waxa uu ahaa mid iska danyara xagga dabeecadda Daahir waxa uu ahaa mid furfuran Ikraan waxa ay ahayd gabar dhigata jaamacad ku taala isla dalka Soomaaliya waxa kale oo ay ahayd Ikraan mid ka dhalatay reer dhaqan ama reer waxaysta Daahir waxa uu joogay ayeeyo hooyo dhashay oo qof weyna cid ku kaalmeynaysana maysan jirin wuxuu soo xamaasho mooyaane maalin maalmaha kamida waxa suuqa u soo alaab doontay Ikraan iyo hooyadeed ayagoo ku soo dhacay baqaarka uu ka shaqagelayay Daahir ayaa aad u soo dhaweeyay Ikraan iyo hooyadeed kadib marka ay adeegteen Ikraan ayaa haraaday waxay biyo u dirsatay Daahir inta uu maqnaa ayaa waxa ay iska bixisay Ikraan indha xerkii ama indha shareerka Daahir ayaa yimid isagoo wada biyaha loo diray marka uu arkay wajigeeda oo furan Ikraan Daahir wuu isbedelay isagoo leh maasha Allah biyihii markuu siinayay ay ku tiri mahadsanid ayadoo waliba qoslaysa Daahir ayaa indhihiisa ka sii qaadi waayay Ikraan asagoo kaftamaya ayuu ku yiri maama gabadhaada oo kale iigu ducay inaan helo maamada ayaa si kaftana u tiri nin baariya adoo kale iigu ducay gabadhayda Daahir ayaa durbadiiba waxa uu bilaabay inuu u raro alaabtooda isagoo rabay inuu la hadlo Ikraan balse wuxuu ka baqday in ay ku dhahdo hadal xun kadib hooyadeeda ayuu sikadiisa ku yiri halkeed ka imaadeen oo magacaaga maamada ayadoon dareemin ayay sheegtay magaceeda iyo xaafadaba Daahir danihiisu waxa ay ahaayeen xaafadda kaliya markii loo sheegayna aad buu ugu farxay midaasi kadib waxa uu taagnaa boosteejada uu gaariga ka saaray ilaa uu gaarigooda ka dhaqaaqo meesha ayuu taagnaa xitaa uu ilaaway shaqadiisa kadib markii uu galabtii shaqada ka baxay ayuu toosay xaafadda Ikraan wuxuu wax badan raadiyay Ikraan gurigooda qof walba oo arkana waxa uu weydiinayay maama Xaawo oo ahayd Ikraan hooyadeeda waqtiga ayaa ku dhamaaday oo qoraxdii ayaana ku dhacday walina wax ma uusan helin waxa uu go'aansaday inuu u soo laabto maalin kale inta uusan ka bixin xaafadda ayaa waxa qabsatay tuugo kamid ah xaafadda oo ka qaatay lacagta uu maanta shaqeeyay iyo moobilkiisaba gurigiina laga sugayo biil kadib waa uu iska laabtay maalinta xigta ayuu soo laabtay ayadoo ay tahay subax inta uusan raadin guriga ayaa waxa uu arkay Ikraan oo u socota jaamacadda isagoo farxay waxa uuna ku yiri no